waan dhawahay cawaalow dadka ku taageeraan kamid ahay aye barnaamijka ah qaadiidkana waa qolyahaas qaadiidka baan ku jira kooxdaada waad guuleysan doontaa mar ay noqoto mar baad daroogada ka hortagi doontaa insha Allah runtii aad baan u faraxnay maalintii dhaweeyda qaadka Soomaaliya laga joojiyay yiddiilo weyn baan nagashay hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed inta samaha jecel balse waxa dib nagu noqoto nawiiqday markii dhowr cisho gudahooda loo tagay madaxweynihii dalka Soomaaliya xukumayay ee la yiri adoon saxiixin kaama dul dhaqaaqayna noo saxiix daroogadi wadankii lagu soo daayay mar labaad horta rag waxaan weydiisanaynaa inuu Ilaahay daroogada naga qabto madax khayr qabtana Ilaahay noo dhaliyo aamin walaal aad iyo aad aamin aad baad u mahadsantahay Hinda wax yar oo aan ka iri ragga qaadka cuna ayaan idin kala qayb qaadanaya ayo walaal soo dhawow waxaan iri ninka qaad cunay quudka moodayo qaadku waa dilaa u dhaw jaraa qabri buu dhigaa qoyska wuu dushaa ninka qaad cunaa xil ma qaadi karo qoys ma soori karo quraac qadada warkeeda ma quraacin karo ninka qaad cunaa mala qurux rag iyo qiimo iyo hanaan ishu qaban karto waa qolfoof engegan ninka qaad cunaa marwadu qabiyo qoyska iyo caruur qiimo lama laho haduu qayb ku heli qaad buu siisan la ragga qaadka cuna ilkuhu ka qubo afku waa qashuush ragga qaadka cuna ilkuhu ka qubo afku waa qashuush ninka qaad cuna hadii maalin qura qaadka aanu helin ma qadaynayo soortu waa u qaraad ninka qaad cuna marwadu ninka qaad cuna qalanjadii hablaha dumar ugu qoxoon ee qaadirkii qoyskii uu ka dhigay maba qaabilo ma qaboojin karo kuma qanacsanaynantu yani aad iyo aad